2024 runtii u dhamaaday 2025 insha Allah taala ilaahay waxa ka rajeenaynaa inay noo noqoto sanad kale oo wanaagsan hadii sanadkii 2024 noo wanaagsanayna in ilaahay noo wanaajiyo oo nooga dhigo sanad khayr iyo baraaro fiican iyo guulo ilaahay subhanahu wa ta'ala nagu kulmiyo dhamaan dhalinyaradu runtii waxay ka sameeyeen in ay energy cusub helaan sanadka bilowgiisa balse laakiin marka meel dhexe la marayo qofkaasi uu waayo dhamaan waxyaabihii uu qorsheynayay ama energy fiicnaa uu hayay oo islaha sanadkaas cusub fuli ama qorshe oo guul ka gaar hadaba waxa rabaa inaan dhowr qodob kula wadaago kuwaas oo aan arko inay qayb ka qaadan karaan guulahaaga sanadkaaga 2025 soo dhawow haddaba qofku marka uu rabo inuu guuleysto waxa jira laba wax hadii uu isla helo ay sabab u noqon karto inuu wixiisaas ku guuleysto waa hadii uu isla helo isagoo diyaar ah fursadiina uu helo runtii qofkaasi uu guuleysanaya waxa uu rabana uu ku guuleysanaya markastoo fursad ku soo marto hadii aan diyaar ahayn fursadaas wax iska noqonaysa zero waxaan noqon doontaa mid aanad ka faa'iideysan oo aad khasaarisid balse laakiin waxa muhiim ah mar walba inaad diyaar u noqotid inaad ka faa'iideysatid fursad kasto noloshaada ku soo marta si aad ugu guuleysatid waxa taa ka dareemeynaa ama ogaanaynaa in qofku marka uu warsa ay muhiim tahay inuu diyaar garow fiican sameeyo ama inuu sugu diyaar noqdo tusaale markaad u baahan tahay inaad bas raacdid oo meel heblaaye ka raacdid oo baska ayaa gurigaaga kugu soo maraa mise adiga ayaa u diyaar garooba oo baska diyaar ku noqda meesha bas station-ka ama istaanka basaska ee basasku ka baxaan kadibna baska raaca waxa baala inaad adigu u diyaar garoodid baska oo aad baxdid kadibna aad ka raacdid meeshaas basku ka baxayo kadibna aad gaadhid meesha aad u baahnayd noloshuna waa sidaas oo kale fursadna albaabka kugu soo garaacayso kuma oranaysa way kan ina mari balse laakiin adiga ayaa lagaaga baahayay inaad fursadaha noqotid mid raadiya oo suga oo ka faa'iideysta markay waqtigeeda gaadho hadaba waxa muhiim ah in sanadka 2025 seen fursadaha uga faa'iideysano inaynu nafaheena diyaarino inagu noqono kuwa diyaar ah kow inaan qorshayaal fiican diyaarsano oo mangal ah oo hirgeli kara oo aynu runtii kamar dhalin karno inaynu nafaheena waxa weeyaan aqoon ku soo kordhino haday noqoto xirfado haday noqoto aqoon guud haday noqoto xogo inaga maqnaa inay nafaheena dhiso maskax ahaan mentally inaad dhistid inaad caafimaad ahaan naftaada ka warhaysid oo aanad noqon qof isku ilaawa fadhiga badan ama hurdada badan ama cuntada badan lafteeda inaad noqotid qof at least caafimaadkiisa ka warhaya oo ay qofka hadaan caafimaad qabin wax kale oo nolosha ku qabsoomaya haba yaraatay ma jiraan Allah subhanahu wa ta'ala waxay ka baryanaa in Allah subhanahu wa ta'ala caafimaadkeena inuu ilaaliyo markasta intaasi waa inuu qofku diyaar noqdo qodobka labaad ee rabo inaan kula wadaaga waxay tahay saaxiib waxaad ogaataa casri kastaaba in teknolojiyadu ay sii horumarto inaadan noqon qof ka hara caalamka inaad caalamka ka hadhid waxa yani ugu yar oo ah talaabada ugu yar ee caalamka uga hari kartid waa adoo diida inaad ka faa'iideystid teknolojiyadahan cusub ee lagu horumarinayo ganacsiga waxbarashada dhaqaalaha wax kasta marka ha oranin anigu ma yahay qof IT ah mana yahay qof waxaan bartay mana yahay qof waxaan yani interest fiican u haya adduunyada dhamaanta technology bay ku dhisan tahay isku day inaadan caalamkan cusub iska indhatirin macnaha waxa ka wadaa inaad isku daydid ugu yaraan inaad la jaan qaadid casrigan cusub ee markaasi marba ka baysa horumarka balaaran sameeynaya maalinta Elon Musk wuxuu soo bandhigay barnaamij la yaab leh taas oo runtii lagu tilmaamayba in casrigii waa la gaaray casrigii bini'aadamku shaqo walbaaba ka soo afgo'ay lahayd la gaaray yani casrigu talaabooyin bu marba maraa ee casrigan imika la marayo 2025 waxa lagu tilmaamayaa inay noqon doonto casrigii artificial intelligence macnaha kombiyuutero roboto waxyaabo aanad adigu de remote miran bala wada isticmaali doonaa marka inaad at least adiga la jaan qaadid casrigaas oo aad isku daydid inaad dhageystid barnaamijyada casriga ah ee socda ayaa ku muhiim ah si aad ugu horumarisid markaasi hadaad ganacsi leedahay ganacsigaaga dad wax baranaysid aqoontaada hadii aad dhaqaalahaaga rabtid inaad ku koriso lafteeda inaad isku daydid inaad ku koriso sababtoo ah casrigan cusubi wuxuu soo kordhiyay wax kastaaba in la fududeeyo oo waqtigii badnaa ku bixi jiray in la yareeyo macnaha hadii aad bishii dhaqaale intaasaad ku xisaabtami jirtay inaad imika ku heli kartid isbuuc hadda isbuuc inta ku xisaabtami jirtay inaad ku heli kartid maalin hadii bisho dhan aad u kala hijitay ama subax walba aad u toosi jirtay si aad shaqadaada u tagtid inaad awood u yeelatid adoo kombiyuutarkaaga isticmaalaya in aad shaqo walba qabsatid casriga mar walba wuxuu isku dayay inuu xaliyo dhibaato bini'aadamka haystay marka hadii aad adiguna naftaada diyaar uga sii dhigin runtii waxaad noqon doontaa qof
aad looga hormaro. 3 ugu dambeyntii waa inaad noqotid qof Allah subhanahu wa ta'ala ku xiran. 2025 sidee suurtagal u noqon kartaa inay kugu bilaabanto adigoon salaada tukan, adigoon Allah subhanahu wa ta'ala ku xirnayn, adigoon macsida iyo dhibaatooyinka iyo fasahaadka socda iska ilaalinayn. waan ognahay sanadadan fisqigii iyo fasahaadkii aad ay u batay, yani waxa batay mushkiladihii mutalqafladii, yani mal garan karno waqti qofkan bini aadamka dhimanayo goorta ay dhimanayno. qof maanta kula fadhiya laga yaabo inuu gaari jiro, inuu dhinto, in adigaagan aad imika muuqaalka ku duubayn wax yar kadib wax igu dhici karaan, caafimaadkaaga waayi karo, dhibaato kasta igu dhici karaan. bas laakiin Allah subhanahu wa ta'ala inaad ku xidhnaatid yaani noqonin wax aad dib u dhigtid. ka faa'iideyso intaad caafimaad qabtid, dhalinyar tahay, inaad Allah subhanahu wa ta'ala ku xidhnaatid 5 salaadood ugu yaraan aad ilaalisid. markaan ku leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala ku xidhno kama dhigna inaad garweyn la baxdid, inaad waxa weeyaan khamiis xiratid, inaad masaajidka 4 saacadood taagnaatid. maya, noloshaada dhalinyarnimo wado, caadi u noolow sida bini aadamka u noolow. 5 salaadood ka adkow, bini aadamka ka nabad galaan afkaaga, adigaaga, gacantaada. bas Allah subhanahu wa ta'ala ku xidhno xiriir fiican la yeelo. bas wax aad u baahan tahay ma jirto, laakiin dadku way qalad fahmeen. Allah subhanahu wa ta'ala ku xidhno marka lagu leeyahay sheekh noqon maaha, laakiin waa 5 salaadood inay bini aadamkana ka nabad galaan. Allah subhanahu wa ta'ala ku xidhnaatid insha Allah ta'ala dhibaatooyinka Allah subhanahu wa ta'ala na baal mariyo sanadka 2025. Allah subhanahu wa ta'ala waxaan uga rajeynayaa in Ilaahay guulo noogu bilaabo, guulana inoogu dhameeyo.